si qarsoon u noqo mid saxan waxaa si muuqata u noqonaysaa mid sariix ah midkood ayaa su'aal weydiiyey nin wuxuu ku yidhi markii aad hadashid hadalkaadu muxuu u saameeyaa dadka haddii ay hadlaan kuwa kalena aysan hadalkooda u saamaynaynin dadka wuxuu ku jawaabay ninkii maxaa yeelay ka hor intaanan la hadlin oo aanan wax u sheegin subaxdii waxaan u duceeyaa habeenkii midka dhibaataysanow haddii aad hor istaagtid ood wax uga baahatid dadka waxaad leedahay addoommadii allow waxaas iyo waxaas iga caawiya haddaba hor istaag oo rabbigaaga ku dheh rabbiyow addoonkaaga ayaan ahay ee waxaas isii haddaba xasuusnow allah markii uu ku soo dejiyey nebigiisa naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee yaa ayuha almuddathir qum faandir oo micnaheedu yahay nebiga isdadayow istaag oo dig kadibna wuxuu ku soo dejiyey alle subxaanahu wa tacaala nebigiisa يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا oo micnaheedu yahay nebiga isduuduubayow istaag habeenkii oo tuka wax yar mooye waxaynu ka qaadanaynaa oo aynu ka baranaynaa aayadahaasi qiimaha ay leedahay salaadda la tukado habeenkii salaatuleylka qofkii tukadaa wuxuu ka helayaa nuur iyo in ducadiisa laga aqbalo waayo xilligaasi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu imaanayaa samaa'u dunyaa yaliiqu bijalaalihi soo degitaan iyo imaansho ku habboon asaga wuxuuna dhahayaa yaa i baryayoon u aqbalaa ducadiisa yaa waxa weyddiisanayoon siiyaa yaa dembidhaafi weyddiisanaya oon u dembi dhaafaa haddaba walaalayaal xilligaasi qaaliga ah aynu ka faa'iidaysanno dhammaanteena waxaan sii raaraacay oon baaray siiradii kuwii waaweynaa ee ka mid ahaa a'immadii muslimiinta waxaan helay inay ku kala duwanaayeen awooddooda takhasuskooda tacaamulkooda akhlaaqdooda bilowgooda da'dooda balse waxay isku waafaqeen salaatuleylka xilli ay soo jeedin cidna oo ay markaasi u tukadaan allah waaxidka ah keligiisa aynu ka faa'iidaysanno wakhtigaasi qaaliga ah walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh